السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاوة كاستل زيتين وهويني إنجنير oo ku takhasustay cilmiga sayniska gaar ahaan wax soo saarka qalabka tiknoolajiyada ku shaqeeya waxaanay noqotay haweenidii ugu horeysay dunida taasoo dalkeeda Turkiga u soo saartay mishiinka ay ku shaqeeyaan marwaxadaha diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarta loo yaqaano waxaana dhawaan lagu sharfay shahaadada ugu sarreysa dhinaca wax soo saarka gaar ahaan qalabka diyaaradaha ku soo dhawaada saaxiibayaal mowduuc kooban oo aan warintaasi ku eegi doono xus lagu soo beegay maalinta ay reer galbeedku u yaqaanaan haweenka adduunka oo lagu qabtay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxa lagu xusay maalinta haweeneydan ee warshadaha wax soo saarka diyaaradaha iyo waliba saraakiisha booliska ee haweenka ah iyada oo Turkigu 10 sano ee ugu dambeeyay si weyn u kordhiyay haweenka loo qaato booliska si ay uga hortagaan dambiyada iyo ka qayb qaadashada ilaalinta sugitaanka amniga Hawa Kastal waa saynisyahan ka tirsan mid ka mid ah hay'adaha ugu waaweyn ee cilmiga sayniska ee dalka Turkiga waxaana sheegtay in ay ku faanayso ka qayb qaadashada soo saarista aaladaha marwaxadaha ee loo adeegsaday motorkii ugu horeeyay ee qaran ee helikobtar ah ee ay soo saaraan wadanka Turkigu sida ay baahisay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu Engineer Hawa Kastal Zeytin waxa ay muddo 30 sano ah daraasad ka waday xarunta cilmi baarista ee Marmara MAM ee hoos timaada golaha cilmi baarista sayniska iyo tiknoolajiyada ee Turkiga ee loo soo gaabiyo TÜBİTAK haweeneydan injineerka ahi waxay muddo 4 sano ah qalinjibinteeda ku qaadatay oo ay ka shaqeynaysaa xarunta cilmi baarista ee Marmara ee hoos timaada golaha cilmi baarista sayniska iyo tiknoolajiyada ee Turkiga ee loo yaqaano TÜBİTAK waxaana loo aqoonsaday mid ka mid ah injineerada ugu kartida iyo maskaxda badnaa oo waqtiga oo dhan gelisay sidii ay wax soo saar u sameyn lahayd taasi oo ay ugu dambeyn ku gaadhay in ay noqoto haweeneydii wadankeeda Turkiga ka caawisay in ay soo saarto mishiinka ay ku shaqeeyaan diyaaradaha marwaxadda leh ee helikobtartu taasi oo dhawaan Turkigu daaha ka rogi doono wax soo saarkiisii ugu horeeyay ee uu ku soo saaro diyaarado casri ah oo helikobtar ah kuwaasi oo isugu jira kuwa rayid ah iyo kuwa militariga ahba taasi oo Turkiga ka caawinaysa inuu noqdo wadan ka mid ah wadamada soo saara diyaaradaha qumaatiga u kaca gaar ahaan noocyadii ugu dambeeyay ee ugu tayada wanaagsan kuma koobna oo kaliya ah haweeneydani in ay soo saarto mishiinka ay ku shaqeeyaan marwaxadaha diyaaradaha qumaatiga u kaca balse waxa ay dhawaan sidoo kale ku guuleysatay in ay farsamayso oo ay noqoto injineerka hindisay soona saaray mishiinada lagu kiciyo ama loo adeegsado qalabka duulimaadka ee baaloonka ama buufimada loo yaqaano oo markii hore Turkiga uga iman jiray dalalka Jarmalka iyo Mareykanka wixii intaasi ka dambeeyay hadda kadib Turkigu waxa uu noqonayaa mid ka mid ah wadamada soo saara qalabkaasi waxaanay haweeneydani wax soo saarkaasi kale la kaashatay TÜBİTAK iyo TUSAS Engine Industries haweeneydan Hawa Zeytin waxa ay u sheegtay wakaaladda wararka ee Anadolu inay ku dhalatay tuulada Muradiye oo ka tirsan Riis oo dhaca gobolka Badda Madow ama Black Sea halkaasna ay ku noolayd ilaa ay ka dhamaysay dugsiga hoose dhexe iyada oo xustay in aabaheed iyada oo yar iyada iyo qoyskooda kaleba uu u soo raray magaalada Istanbul oo ay waxbarashadeeda ku dhamaysatay ilaa ay maanta noqotay mid ka mid ah dadka geesiyaasha ah ee loo diiwaan geliyay in ay wadanka Turkiga wax ku soo kordhiyeen Hawa Zeytin oo waraysi siisay wakaaladda wararka ee Anadolu waxa ay tiri waxaan ka tagay Riis sanadkii 1973 marka aad ka tagto dugsiga hoose dhexe ee Muradiye waa in aad ka fikirtaa sidii aad waxbarasho kale u sii wadan lahayd waxaanan bilaabay in aan wax ka barto Nizantazi oo Istanbul ku taala nolol deegaan ahaan aanad ku korin waxa uu ka dhigayaa sidii kalluun biyo laga soo dhex saaray oo kale waxa aan u adkaystay inaan la qabsado jawiga iyo nolosha cusub ee aan ugu imid Istanbul oo ah dabcan magaalada ugu weyn dalkayga Turkiga waa markii aniga oo yar aan imid Istanbul waxaan ku hadlayay lahjad u gaar ah dadka degan deegaamada u dhow Black Sea ama Badda Madow waxa laygu takooray fasalka markii aan bilaabay dugsiga sare laakiin si dhaqso ah ayaan ula qabsaday ay tiri haweeneydani Hawa Zeytin waxa ay sheegtay inay ka qalin jabisay waaxda injineernimada biraha ee jaamacadda farsamada ee Istanbul kana shaqaysay waaxda gaarka loo leeyahay kadib markii ay dhamaysay shahaadada labaad ee jaamacadda waa isla jaamacadda ay digriiga hore ka qaadatay iyadoo arrimahan ka hadlaysa waxay tiri aniga oo ah 24 jir injineer dumar ah waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo warshad aluminiyumka soo saarta waxa aan wada shaqaynaynay in ka badan 150 shaqaale ah dhammaantood waxay ahaayeen rag
kelidayna waxaan ka ahaa haween waxaan ka shaqaynayay warshadaasi qiyaastii 2 sano iyo badh waxaan noqday injineerka keliya ee dumarka ah marka laga tago dhowr haween ah oo shaqadan qaban kari waayey oo isla markiiba isaga tegey meeshaas wax badan ayaan ka bartay oo ay bartay waxaan uga shaqeeyey warshadda sida ugu wanaagsan aniga oo mar walba aaminsanaa in aan hore uga socdo oo aanan shaqaale ku koobnaan ee aan noqdo qof wax curiya oo hindiso cusub la yimaada aqoontayda ayaan sii horumariyey waxaanan helay fursad ay i siiyeen macaahidda tiknoolajiyadda ee aan ka howlgeliyey waxaan saacado badan ku fikirayey sidii aan diyaarado helikobtar ah u samayn lahaa waxaan u wareegay waaxda duulimaadyada iyo wax soo saarka dhinaca aaladaha cirka halkaasi ayaa noqotay halka aan wax ka bartay marka laga hadlayo wax soo saarkan aan maanta guusha ku gaadhay sidaas waxaa tidhi Xaawa Zaytiin iyada oo sheegtay in ay imika muddo ku dhow 30 sano ka mid tahay injineerada wax soo saarka diyaaradaha qumaatiga u kaca intaasi haddii aan saaxiibayaal kaga nimaadno haweeneydan noqotay injineerkii ugu horreeyay Turkiga ee farsamaysa mishiinada ay ku shaqeeyaan marwaxadaha diyaaradaha qumaatiga u kaca bal aan eegno dhinaca kale xaflad loo sameeyey haweenka booliska ah ee dalka Turkiga oo noqday mid ka mid ah wadamada ugu horeeya dhinaca shaqaalaysiinta ama adeegsiga haweenka loo qaato booliska gaar ahaan booliska sida militariga u tababaran ee rabshadaha iyo kooxaha falaagada ah ka hortaga ciidanka gaarka ah ee ka tirsan waaxda booliska Hakkari waxay ka howlgalaan wadanka Turkiga oo dhan ciidamadan haweenka ah ee booliska ahi waxay ilaalo ka qabtaan qaarkood meelaha ay ku dhuumaalaystaan kooxaha dagaalka kula jira Turkiga sida PKK ee buuraha waxayna qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah sugidda nabadda deegaamada ay ka howlgalayaan kaliya maalin uun ka hor maalinta ay reer galbeedku ula baxeen maalinta haweenka adduunka Turkiga laftiisana laga xusay ciidanka booliska Turkigu waxay ku sheegaan fariin ah in haweenku ay gaari karaan wax kasta oo ay niyadda geliyaan haweeney sarkaalad booliis ah oo la hadlaysay wakaaladda wararka Turkiga ee Anatol ayaa sheegtay in ay helaan tababaro adag si ay ugu soo bandhigaan heerkooda ugu wanaagsan iyaga oo u dulqaatay dhulka xaaladiisu qallafsan tahay ee cimilo ahaan aadka u xun aniga oo ah haweeney Turki ah sharaf ay ii tahay inaan la shaqeeyo si loo ilaaliyo wadajirka dalkayga Turkiga ee aan jecelahay waxaan u rajaynayaa dhammaan haweenka Anatolia maalinta haweenka adduunka wanaag oo dhan waan garab taagannahay waxaanan dhaxanta iyo barafka ugu shaqaynaynaa sidii ay amni ugu seexan lahaayeen Khadija Okan iyada oo ku faanaysa in ay u adeegto dhulalka uu ku daatay dhiigga shuhadadu waxa ay tiri waxaan diyaar u ahay in aan tagno meel kasta oo ay waajib nagu tahay in aan tagnaa waana halgan ummadeed oo aanu dalkayaga ugu shaqaynayno si la mid ah ragga ayaan dagaal u galnaa waxaana noqonnay haween karti badan leh waxaana sharaftaa noo yeelay dowladda oo garatay waxa aan qaban karno sidaasi ay tiri Khadija Okan oo ka warramaysay xaaladda ciidanka booliska ee haweenka waddanka Turkiga in ka badan 35 sano oo waddanka Turkiga ku jiray olole uu kula dagaalamayo kooxaha Kurdiyiinta ah ee gooni goosadka raba gaar ahaan kooxda PKK waxa uu bilihii ugu dambeeyay qaaday howlgalladii ugu ballaadhnaa ee laga fuliyo deegaamada ay ka dagaalamaan PKK waxaanay dowladda Turkigu doonaysaa in ay yarayso oo ay wiiqdo awoodda kooxda PKK dabadayaal mawduucaasi aynu ku eegaynay haweeneyda soo saartay mashiinka ay ku shaqeeyaan diyaaradaha helikobtarku ee dalka Turkiga iyo sidoo kale haweenka kartida badan ee booliska ka tirsan ee waddanka Turkiga aan intaasi ku soo gabagabeeyay mawduucan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.